waaxda digitalization and innovation oo kamid ah waaxaha marka ah ee wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda. haddaynu ka hadalno waa marka hore waaxdu waxay qabato iyo waaxdu waxay tahay. marka hore waaxda casriyeynta iyo halabuurka taasoo shaqo fara badan ka qabata in e-government la sameeyo ama electronic government. dawladdeenu inay isu bedesho nidaam casriyeysan oo nidaamkii electronicska ahaa. waxay ka kooban tahay 3 section oo sectionkii e-government-ka ahaa oo electronic government-kii ka shaqeynaya nidaamkii loogu casriyeyn la electronically. section network iyo data center-ka ka shaqeynaya oo in dawladdu ay yeelato data center muhiima oo xogtii la dhigan karo ama lagu kaydin karo. iyo qaybta saddexaad oo la shaqeynaysa hal abuurka innovationiska taasoo diyaarinaysa shuruucda iyo nidaamyada hal abuurka la xiriira tiknoolajiyadda. marka haddaynu intaa kaga nimaadno waaxdu waxa core mandate-keeda ama waxyaabaha ay aadka ula xiriidho ama ay ka shaqeyso kamid ah inay sameyso xeerar iyo siyaasado iyo xeer nidaamyayaal ay leedahay dawladdu oo dhanka tiknoolajiyadda iyo e-government-ga ah iyadoo la sameeyay work plan e-government-ya oo 5 years ahaa. waxay waaxdu maamushaa shabakadda wasaaradda iyo data center-ka oo ah meesha xogta lagu kaydiyo. waxay xiriir la leedahay Taiwan ICDF oo aynu kala shaqeyno markaa wixii tiknoolajiyada ay uga baahan yihiin ama mashaariicda tiknoolajiyadda oo kuwaasoo ay ugu muhiimsan yihiin mashruuca iminka S-Road-ka for example oo kale haddaan tusaale usoo qaadano. mashruucaas waa data exchange platform, waa meel laisku weydaarsanayo xogtii dawladda ama laamihii dawladdu ay ku wada hadli karayaan, ku wada xiriiri karayaan, xogtiina lagu kala heli karayo. for example kaasoo fudaydinaya iminka marka wasaaradda arrimaha gudaha kale uga baahan tahay inuu qofkani ID-gii leeyahay national ID-gii adigoo national ID-gii u dirin in aad si fudud halkan uga yeerki karto ama aad si fudud u access gareyn karto. mashruucyada ay wasaaraddu qabato waxaa kamid ah waaxda ay u qaabilsan tahay mashruuca ICT conference-ka oo shirweynaha ICT-ga ee heer qaran kaasoo la isku weydaarsado dhammaan technology-ga sanad walba waa la qabtaa. iminka sanadkii dhowr sanaba waynu soo qabanaynay, sanadka laftirkiisa waynu qorshaysan yahay kaasoo lagu eego trending technologies-ka tiknoolajiyadda markaa soconaysa ee trending-ka ah ee soo baxday ayaa lagu gorfeeyaa. dood wadaag baa lagu yeeshaa, bandhigyaal lagu qabtaa ama bootcamis kuwaasoo lagu soo bandhigayo tiknoolajiyada localka ah iyo kuwa international-ga ah inay ka soo qayb galaan oo halka ay ku soo bandhigaan la iskuna weydaarsado xogaha ku saabsan tiknoolajiyadda markaa socotay casriga ah. waaxdu waxay mashruucyada Taiwan ay kala shaqeyso kamid ah National Data Center iminka ay hawshiisii ku jirno oo in la sameeyo data center heer qarana oo dhismihiisii u gaar yahay, qalabkiisii u gaar yahay oo si aad looga shaqeynayo kaasoo lagu kaydin doono xogta marka dawladdeena nidaamka wasaaradaha oo dhan iyo laamaha dawladda oo dhan ay ku kaydsan doonaan oo hawshiisii imka agreement-kii heshiiskii uu dhamaado dhawaan la bilaabi doona hadii Ilaahay ka dhigo. iyada laftirkeeda waxaa muhiim ah meel cyber security center oo tababaro iyo hawlo badan lagu qaban doono oo dadka laga dhisi doono marka cyber security-gii ama cyber crimes-kii inay iska ilaalin karaan. waxaa kaloo jira hawlaha imka aan wadno top level domain-kii for example oo kale in ay Somaliland yeelan karto .org baan maqli jirnay iyo .com oo kale domain kaas oo kale inay wasaaraddu yeelan karto oo dawladdu yeelan karto domain u gaara oo iyagu isticmaalaan. marka core mandate-ka wasaaradda waaxdu ay qaabilsan tahay waxaa kamid ah mandate-keeda inay hogaamiso fulinta hindisayaasha nidaamyada dawladda ee electronic ah dhammaantood wixii electronic la xiriira isku dubaridka dhammaan daneeyayaasha kala duwan ee innovationska ama halabuurka daneeya inay la shaqeyso si kor loogu qaado halabuurka ku saleysan tiknoolajiyadda ee waddankeena Somaliland iyo qaar kale fara badan oo kamid tahay diyaarinta iyo sameynta xeerarka siyaasadaha halbeegyada iyo habraacyada e-government-ka ama electronic government-ka waxa loo yaqaano
marka haddaynu core mandate-keenu aad buu fara badan yahay haddaan halkaa kaga yara imaado waxyaabaha waaxda u qabsoomay waxaa ka mid ah inay samaysay xeerka data protection act loo yaqaano oo sidii xogta loo ilaalin lahaa xeerka ilaalinta xogta cyber crimeska dambiyada cyber crime-ka ah ee ka dhaca dunida waynu wada aragnay in wadankeena xeer isaga laftarkiisa uga yaali karo waxa waaxda u qabsoomay inay mashruucii S-Road dhamaystirmay technically marka iminka la doonayo in la fuliyo oo la apply gareeyo oo wasaaradihii marka ay bilaabaan xogtii lasoo drive gareeyo waxa u qabsoomay sanadkii hore shirweynihii shanaad ee ICT conference sanadkan aynu rajeynayno haddii ilaahay ka dhigo shirweynihii lixaad ee ICT conference-ka waxa u qabsoomay waxyaabaha ka mid ah inay competitions qabato iyo inay tababar iyo xiriir heer caalamiya ay sameyso oo wasaaradii ay u sameyso xiriir heer caalamiya oo markaa shaqaalaha qayb ka mid oo kale aqoon kororsi u aadaan waxyaabaha markaa qaybta waxa nooga qabsoomay inaan experience sharing aan ku sameyno program innovation hubska Nairobi iyo kuwaasoo aan heshiis markaa rasmiya la soo galnay oo heshiiskii iyo wada shaqayntii aan la yeelanay waxa kaloo shaqaalaha wasaaradda laba qof oo xubnood oo kamidi ay u tageen training tababar ah cyber security policy formulation in Taiwan oo markaa waaxdu ay ka shaqaysay oo ay isku soo dibariday oo qaban qaabisay sanadkii dhawaa waxaan filayaa markaa in intaa ku eg tahay muhiimadda ugu ballaaran aad baan idin salaamay. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.